mugii dawladii Soomaaliyeed ay ka badbaadi lahayd ay yiraahiin dawladdu wax kale ka shaqeynaysaa cadawgii dadka ay ka badbaadimay aaday nasiib darro u tahay nimanka meesha ka hadlay horta waa kuwama waa kuwii 8 sano la soo dhaafay xawaalo matelayo madaxdu u ahay xawaalo waa yaqaana haday wax u galeen ay deegaanka gobolka Hiiraan ay ka soo jeedaan wax u galeen ay qabiilka xawaalay ka soo jeedaan ay wax u galeen ay masiirkooda mugay qaateen ay matalaadooda qaateen kadib ku soo noqdeen iyo haday hadda masiirkii mugow ka dhamaado waqtigoodii dhamaaday haddana sidii qaab darrada ay masiirka xawaalo ku heli jireen oo dabandaabyada ahayd oo yacni aheeday dadan xawaalo u dhalano inuu meelan xawaalo uusan joogin ama dadkiisu ku badnayn lagu doorto hadday hadda raadinayaan iyo hadday masiirka xawaalo mugay qaateen si kastaba ku helaane ay xawaalo kula soo noqdeen ay xawaalo ugu shaqeeyeen ay xawaalo horumarkiisa uga shaqeeyeen ay amnigiisa uga shaqeeyeen ay dawladda Soomaaliyeed ay xawaalo ku matalayeen ay dawladda Soomaaliyeed ay xawaalo ku matalayeen waxay xawaalo xaq ugu lahay ay ka keeneen xawaalo wuxuu uga gal darayaan ay ka qabteen way xawaalo loo gal darayaan ay ka doodi jireen iyo haday darahooda qaaska ka shaqeysan jireenba xawaalo waa yaqaana xawaalo yaa maalin bashaati leedii soo gashan xawaalo yaa nin walba maalin idigu oor kacsan oo asugu dangaara leh afartii sano la soo dhaafay nimankaas xawaalay madax u ahaayeen iyo afartii sano ka horeysay ayagu isma salaamaan hadda shalay muga shirka jaraa'id isla qabanayeen shirka jaraa'id laba loo kala qabtay isku dhaceen isku feerayeen awal isma salaami jirin afartii sano la soo dhaafay afartii sano ka horeeyay isma salaami jirin niman mucaarada ama muxaafada ay la kala jireen waa la yaabanahay qaarkood xilka mugii laga qaado dawladda Soomaaliyeed waa caayaan xilka mugay hayaana dadka kale Soomaaliyeed oo dawladda illa leh ay ilhaaneystaan ay waxay rabaan ku sameeyaan ama amni ha ka shaqeeyaan ama wasiirnimo ha ka shaqeeyaan waxay ku dhaqmaan waxa taliyaasha Soomaaliyeed ku dhaqmin ama wasiirada Soomaaliyeed ku dhaqmin ay dadka Soomaaliyeed ku dhaqmaan mugii madaxtinimada loo dhiibo war madaxaatihiin adikii isma rabtiin isku qabiilaatihiin qabiila isla tishiin adikii isma rabtiin oo qod isku lama socotiin xumaata bis inaad ka midowdiin oo dhibaatada bis aad ka midowdiin oo wax horumar aanadu midoobinaha oo wax amni aanadu midoobinaha oo wax talaaho qabiil aanadu midoobinaha aaday nasiib darro u tahay waa wax laga xishooday ka xishoodaan idile walaalaha tiilo isku cidaan nahay tale iga tahay talo sida siyaasadu saas maahan Soomaalida saas lagu macaamil karo dadkiina saas lagu hormarin karo walaadku ma shalaad waa leedeen masaadad waa la tiin war shalay adukii waasida ayna waasida la diray maaho dad xawaaluhu dhaqan u leh duubab soo jireen oo taariikh iyo boqortooyana wale aniga weligay taariikhdana kuma maqal aniguna intaan jiro ilmamaahiya ma arkin qof xawaalaha oo ugaas xawaala caynaysa oo miidiyaha ka caynaysa ama iyo u tagto la fariisata caynaysa oo la diriraysa aniga 3 qofoodaan ka ark oo labana nimanka shalay shir ay ku jirtay midna islaan reer Hargeysa ay tahay 3 qofoodaan ka arkay walax waas xawaala cayna xawaalu aad waas ku jeceli
ugaaskaynu sharaf oo leeyahay boqortooyo soo jirayna halaynahay dadkii shalay caynay oo miidiyaha ka caynay inuu maanta haddana danaha waa la ka hadlo aadayna sib darawta dadkii 8 sano ama 9 sano madax u soo hay xawaadle ama 10 sano oon maalin xawaadle ku soo noqon oon maalin ayagu isi salaamayno danaha waa la ka tashan inay maanta magaxa waa la ka hadlaan ama magax hiiraan ku maxabsadaan aadayna sib darawta nimayo xishoomay diina xishooda beenlow haddaa tahay xusiistaadu ha badnaataa liin mugaad madax tihiin xaquuqda xawaadle kama hadashiin dhibka xawaadle kama hadashiin dhibkii hiiraan kama hadashiin muga xilku idiga dhammaado ama xilka laydiga qaado ama waqtigii inuu dhammaado maxaad xumaata ugu midowdiino xawaadle xaqan ka maqnay waa ka maqan yahay u tiraahiino midka ka maqan sidii loo heli lahay raadkiisa u duugtiin midka ka maqan xaadraadkiisa u duugtiin adukoo danihiinna siyaasadeed ku dabaqa war ilaahay ka cabsada war dhibaatada aakhira leedii weydii doonaan dhibaatada xawaadle ka dhaafa war dalka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed dhibaatada ka dhaafa ciidankii xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidankii booliska Soomaaliyeed oo annaga cadawgaas u codsanay oo taliyihii qaybta 27 dawladdu u soo dirtay beledweyne ayna howlgalkaas hogaamiyo dawladdu beledweyne ugu soo dirtay oo ciidankaas kaliya la sugaayay inuu ka daba yimaado midkii tajooyi asigaba oo cadawgu u hogaamiyo howlgal la galo ayay waxay leeyihiin doorasho lagu boobe beledweynaha laga soo celiyo war kuwii hebel iyo nimanka shalay shiraay waa is yaqaaniin lacagta soo diraayo tiknikada dawladii maxamed siyaad barre kadib aan la soo bixino qabiilaad ku leeyahay guryaha ku jirtay kuwii lacagta habi hore u soo diray lagu sameeyo ilmaha mooriyanta oo ay beledkan hore gadaal u dudayeen maahan oo cali guudlaaw meeshaan imaamaha ay lahaayeen maahan oo madaxweynaha Hirshabeelle meeshaan imaamaha kuwii lahay soo maahan soo kuwii lacagtaa soo diray adinka maahidiin soo kuwii doorashada beledweyne u diiday adinka maahidiin Soomaali ugu tala gashay 25 kursi oo beledweyne Soomaali ugu tala gashay oo Soomaalida hiiraan ka soo jeeda leedahay qof walaal Soomaalida hiiraan ka soo jeeda uu midla joogta war ilaahay ma ka cabsatiin war ma xishootiin war ma dadkiina dhibaatada ka dhaaftiin war dadkiina iyo deegaankiina waxa ka jira ma timaadiin ma ka run sheegtiin ما دنتيس جود كشغيسين كدي بعدين هنا جارك كده عليسين وردك ما عندك غبان ذي دتك ما عندك حقوق ويستين دتكيني هدي على وديلا إن لو سوق غربة دولة سوق غربة واقع قايلين يسين دور شيء دقيقة كيني لو قبضة دتكين لو هدي نقال كيني الهاين إيه هدي شرف كيني الهاين با أي كهلان وكسور جدي لو قبيل كيني الغريو دي بيسين war waxaad sheegaysiin wax dadku ka xishoodo waay wax sharaf darro ah waay xishoodan idilaahay aniga intaas idin dhaafi maaha laakiin waxaad ku dhaqmaysiin isku cid kuma noqon karno isku siyaasad kuma noqon karno isku dawlad kuma noqon karno ninba maalin cid kuma meteli karo waxaad rabtiin mugad cid aad ku metashiin illa idila tashado talada leediga dambeed rabtiin adoo kuma soo noqonay كما سو نقطين والمدح نقطين أنا المجانا المدح هينا لما دور كاو هو كشغينا دنا هذا أو أضياش الله شغينا مجانا مدحنا هنا نح جوجنا نبي نعرف الله غيب سنة هذا المجانا ومتلاد عن نصيب وياه لأن العدة بتلو حمر هسكوت تجينا حمر وحنا كفل كنا حمر عدة أنا لقى من بتلو دولة الصومالية وفدرال كهان شركة ونهاي هيرشابيلا لليرا قول كهيرانا لليرا هيرشابيلا عندنا كومة تلا وهذا أدوك كومة بتشين حوالا أنا قاعد مضحوها أديك كومة هيدين وقتيني واسوق هذا تين هذا كديم وحي إلى هيدي على الفاضي اللي دوتين والرباية ولا على أنها أنكر حشون dadka iyo deegaanka laga dhaxeeyo aan kala xishoon waa idiga xishoonayna laga xishooda
dadkiina iyo deegaankiina la ka xishooda adinka intaasaa warkiina uga bixi rabaa waxaan anoo fursadda aan uga faa'iidaysanaa baaqu diri rabaa ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliyeed ee doorashada Soomaaliya madaxda ka ah marka hore waxaan rabaa inaan meesha media salaan u marsiyaan rabaa 114 salaan ah oo sharaf leh karaamad leh inaan media u marsiyaan rabaa kadib waxaan rabaa inaan xodogaal ka dhigo ra'iisul wasaarow doorashada Soomaaliya madax ka tahay dadka Soomaaliyana madaxaad u tahay nin dalle dantiisa la leexan nin dalle dantiisa la leexan nima dadka metelin oo asagu mucaarado banaanka jooga adiga madaxa wuxuu ku sheegana ku dhaqmin shalay in lagu yimi waa la socdaa waxa lagu sheegayna waa la socdaa hatta ila ayaga ku yimi muwaafaqay waa la socdaa ra'iisul wasaarow meeshaan anaga ka madaxay waxa ka jira la weydii meeshaan howlgalkeeda talihii qaybta militariga ee 7 ee qaybta Hirshabeelle joogta ayaa loo soo diray howlgalkii ciidankii iyo cadawgii la isku fiiriyo kala dhinaaday ciidanka sidaas loo soo kordhiyay doorashada nimanka shalay ku yimid inay beledweyne doorasho ka dhacdo midii Soomaaliya ku heshiiday ay ka dhacdo nimanka shalay ku yimid diiday oo kuwa shalay ku yimid doorashada beledweyne ay caqabad ku ahayn inay qabiilkooda ka hor wareejiyaan hal sano hortaagay madaxweynaha Hirshabeelle shalan ayaga madaxweynaha Hirshabeelle ahay xisaab siyaasadeed hadii xawaalada tabaana waa loo ogol yahay looma diidana inay hor fadhiistaan madaxweynaha Hirshabeelle kala mucaamilaan ay dawladda Soomaaliyeed hor fadhiistaan ay kala mucaamilaan ay waxay xaq u yeeshaan helaan ee haday waayaan kadib xoogooda la soo baxaana laga ogol yahay laakiin marhaba la imaamaha waxaas yeel marhaba meel laga maray lama yaqaan ku imaamaha imaama haysid wala hayga maqan meel laga maray lama yaqaan si loola macaamilaan lama yaqaan umadaas muslimin gaalana waa ogtaa walaalow gacaliya marka xod ogaalan ka dhigaynaa xod ogaal noqo madaxweynaha Hirshabeelle warso anigoo ku xogeynkii warso saraakiisha meeshaan joogtay warso xisaabta ina saas ku dartiin waa idiga rabaa inaad adiga ra'iisul wasaarahu talaabta qaadaydo talaabad ka fikirtay oo xaqiijida ay noqotana waa rabaa hebela cubiriye adigu cirdana dawladnimo ma hebela cubiri ee adigu cirde dawladnimo ma waxa la rabaa adduunkana ka dul lacagtahay wax wanaagsan oo ka shaqeynaa in laga la shaqeeyo ama looga mahad celiyo oo shirka ku tihiin ra'iisul wasaaruhu madaxa looga tahay amarkaaga waa qaadanayna doorashada madax ka tahay xukuumadii Soomaaliyeed aad madax ka tahay doorashada Soomaaliyeed aad madax ka tahay laakiin anaga cadaba la qabsaday in loo soo gurmado kuwa shalay loo yimid looma filay kuwa kale loo soo daro oo adiga waxa meesha ka jira ogaato oo madaxweynaha Hirshabeelle nimanka shalay ku yimid hortaagane ka hor wareega aad tira oo doorashada beledweyne ayaga hortaagane ka wareega aad tiraana waa ka rabnaa dawladnimo ina ka wada shaqeynana waa la iska rabaa hadii dawladnimo laga shaqeey waayo waxa kale ku xiga waa taqaaniin waa dawlad laan